Virgil van Dijk oo shaaciyay wixii uu ku yiri garsoore Oliver kadib barbarihii Everton. Virgil van Dijk ayaa u sheegay garsoore Michael Oliver inuu lumiyay xakamaynta kulankii xasaasiga ah ee Merseyside Derby. Van Dijk ayaa ku jeesay inay u ciyaartay Everton kulanka sidii finaal. Liverpool waxay ku sakatay inay 9 dhibcood ku qabato hoggaanka Premier League kadib markii Mohamed Salah uu dhaliyay gool iyadoo kaliya 14 dhibcood ay ka harsan tahay dhamaadka ciyaarta. Waana kulankii ugu dambeeyay ee Goodison Park ka hor inta aysan Everton u guurin garoonkooda cusub xagaagan. Laakiin James Tarkowski ayaa dhaliyay goolka barbaraha daqiiqadii ugu dambeeyay ee waqtiga dhimashada, taasoo dhalisay dabaaldegyo waaweyn oo ay sameeyeen taageerayaasha garoonka joogay ee Everton. Markii seeriga ciyaarta la afuufay, xaalad ayaa mar kale qasantay kadib markii Abdoulaye Doucouré uu ku dabaaldegay taageerayaasha Liverpool hortooda, isagoo aamusinaya taageerayaasha martida. Curtis Jones ayaa si degdeg ah ugu ortay dhinaca ciyaaryahanka Everton, taasoo dhalisay isku dhac weyn oo dhex maray labada kooxood. Doucouré iyo Jones labaduba waxaa la siiyay kaar cas ciyaarta kadib, iyadoo sidoo kale tababaraha Liverpool Arne Slot iyo caawiye Spark Halshoff loo taagay kaarka cas. Tan iyo markii David Moyes uu ku soo laabtay Everton, kooxda ayaa ka baxsatay aagga qaybta hoose, iyagoo hadda 10 dhibcood ka sareeya saddexda kooxood ee ugu hooseeya. Laakiin kadib ciyaarta, kabtanka Liverpool Virgil van Dijk ayaa weerar afka ah ku qaaday kooxda ay xifaaltamaan. Waxay sameeyeen isla waxyaabihii ay had iyo jeer samayn jireen, qaab darbe ay u ciyaareen. Waa dagaal iyo dood socota, ayuu u sheegay TNT Sport isagoo la hadlaya. Dabcan dhammaanteen waan ognahay tani inay tahay finaalkooda, waxayna samayn doonaan wax kasta oo ay awoodaan si ay noogu adkeeyaan oo ay guul u gaaraan. Waxaan aragnay sida ay noogu adkeeyeen sanadkan. Waxaad arkaysaa inay goolal dhaliyaan dhamaadka ciyaarta. Waa dhiirigelin weyn oo ay heleen, laakiin naftayada dhirbaaxo weyn ayay nagu tahay. Ciyaartii xalay waxaa la bixiyay 8 kaar oo huruud ah, iyadoo Liverpool ay ka caroodeen in goolka barbaraha ee Everton la ansixiyay, iyagoo aaminsan in Ibrahim Konate la jiiday ka hor inta uusan Tarkowski dhalin goolka.